gudida komishiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay saaka dugsiga Sheekh Bashiir ku yaala magaalada Burco ku kala direen shaqaalihii iyo agabkii iyo gaadiidkii ka hawlgali lahaa 319 goobood oo ka kooban yihiin goobaha codbixinta ee gobolka Togdheer shaqaalaha iyo qalabkan oo loo habeeyay sida loogu talagalay ay saaka ka ambabaxeen magaalada Burco komishineer Kaltuusha Xasan iyo gudoomiyaha komishiga gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guud ahaanba hawlaha komishiga gobolka Togdheer ay sidii loogu talagalay u socdaan halkan imkaan taaganahay waxa weeye waa iskuulka Sheekh Bashiir ee degmada Burco halkaasoo iminka ay ka baxeen gaadiidka dhamaantii iyo shaqaalihii iyo agabkiiba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay ku nabad qab geeyo nabad qabna ku soo celiyo dadweynahana waxaanu leenahay beerito 6 subaxnimo qof kastaba soo qaato kaarkiisa codaynta si uu u codeeyo nabadgelyada la ilaaliyo waxaan mar labaad iyo saddexaad baan ku celcelinaynaa inay dadku ay ilaaliyaan nidaamka iyo runtii habsami socodka kuyada iyo doorashada qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo inay soo kalahaan dadku oo ay 6 subaxnimo yimaadaan goobka qofku ku qoran yahay ee uu kaar ka qaatay halkaas uu ka codeyn doono kaarkiisa xaqiisa dambe ayay ugu qorantay qofku goobta uu ka codeynayo waxaan mar kale ku celeynaa qofku inaanu tagin ama aanu ku logoyn goob kale kuyuna aanu iska gelin ee uu iska hubiyo goobta uu kuyada gelayo inay tahay goobtii asagu uu ka codeynayay ee kaar ka qaatay Waalaikumsalam barakaatu maanta waa maalintii ugu dambeysay ee komishiga doorashooyinka qaranku ay kala dirayeen shaqaalihii goobaha tagi lahaa insha Allah sida qorshaysan bari hadii Ilaahay ka dhigo waa maalintii doorashada qof walba waxaynu u sheegaynaa oo codbixiyaha oo kaarkiisa haysta inuu tago goobtii iska diiwaan galiyay goobtii uu ka qaatay kaar bixinta isagoo markaa qof walba eegaya kaarkiisa halka ugu qoran oo ah dhabarkiisa xagga dambe qof walba ha eego goobtiisa halkaas ugu qoran tahay waxaan markaa ka dardaaraynaa dadku inay ku mashquulaan goobo kale oo aanay liiskooda ama magacooda aanay ka codeyn kareenin marka qof walba soo fursada uga faa'iideysto maadaama ay maalin kaliya tahay waqtiguna kooban yahay qof walba ha ku dadaalo inuu tago oo kaliya goobta uu ka codeynayo oo ah goobta kaarka xaggeeda dambe ugu qoran marka soo aan ku celcelinaynaa si ay dadku u fahmaan dadweynahana waxaan ka codsanaynaa shaqaalaha goobaha jooga inay la shaqeeyaan shaqaale kasta ama arday kasta wuxuu yimid goob aanu garanaynin buu joogaa marka in la soo dhaweeyo haday tahay inay u hoydaan iyo haday tahay inay biyo u baahdaan iyo haday tahay inay ka warhayn u baahdaanba shaqaale kasta jaarkiisa waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan shaqaalaha goobaha jooga ee ka shaqeynaya doorashooyinka gobol walba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan gobolkan Togdheer imika anagu aan joogno way naga baxeen dhammaan qalabkii oo dhan shaqaalihii oo dhan waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo ah inay ku gaaraan goobahoodii waa yaala Xasan Salabaan ayaa la BMTV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.